arrintan dhacday maalintii jimcahayd ee 17 bishan June aanu haatan ku jirno waxaan ognahay dhimashada laga sheegaya al-shabaab inay 60 kor u dhaaftay sida markii la tiriyay sidaasna waxa ay xaqiijiyay gudoomiyaha degmada baxdo mudane maxamed cabdullaahi muuse oo khadka kula xiriiray wax yar ka hor waxaan marka rabaa ujeedada sheekadan idinku sheegaya waxay tahay walaalayaal al-shabaab waa nin Soomaaliyeed oo doonaya hooyo Soomaaliyeed inuu dooxo barakiciyo guryaheeda uu gubo una baabi'iyo asagoo magac diineed soo kambanaya adduunka waa wax la yaabo weeye qof muslima oo tukanaya oo soomaya oo salaadaya oo saka bixinaya oo baxda ku nool ama goobo kale ku nool in nin kale oo diin sheeganaya intuu yimaado oo rasaas ku furo uu barakiciyo waa wax la yaabo weeyaan laakiin waxa arrintan oo dhan macno iyo qurux u yeelay laba qodob oo muhiim ah doonayaan ka soo qaato qodobka koowaad waxa uu yahay bulshada rayidka ee degmada baxda degan siday isugu tashteen isaga caabiyeen isaga celiyaan xaqiiqatan waa wax ku dayasho mudan dowladda Soomaaliyeed ee madaxweyne mudane xasan sheekh maxamuud oo madaxweynaha ka yahay in uu degmadaas hub rasaas iyo waliba tababar dadkaas lala gaaro oo la shaqaaleeyo oo ay ka noqdaan askarta Soomaaliyeed ee la qoro officialka oo markaas degmadaas amnigeeda suga ayaa ku habboon in loo mahad celiyo garab lagu siiyo siday isaga caabiyeen ururka argagixisada ee doonayay naftooda iyo maalkooda iyo dhiigooda iyo cirdigoodaba xalaalsaday waxaan la hadlay in ka badan culummo ilaa 8 qof ah oo Soomaaliyeed oo dadka ugu ixtiraamka badan ah qaar jooga waqooyiga qaar koonfurta jooga iyo qaar gobolada dhexe joogaba intuba waxay isku raacsan yihiin nimankaas inay yihiin niman khawaarij ah loona baahan yahay in meel looga soo wada jeesto mabda ay ku dagaalamayaanna uu yahay mabda ka soo horjeeda diinta xaniifka ee nabiyullaahi maxamed waa siday culummadaas ay hadalka u dhigeen calayhi salaatu wassalaam si kastaba ha ahaatee daawadayaal dadkii rayidka ahaa ayaa iska caabiyey 60 iyo dhowr qof ayaad meydadkoodii aragteen gaadiid laga qabsaday hub ay ka tageen lagama sheekayn karo yacni siday dadkaas isku caabiyeen oo isaga celiyeen arrinta kale oo aadka ii soo jiidatay oo xaqiiqatan igu kaliftay muuqaalkan inaan idinla wadaago waxa ay tahay in maalintii ku xigtay oo sabtida shalayta ahayd imtixaankii shahaadiga ee iskuulladu ay ka furmeen goobtii dagaalku ka dhacay dadkan waa dad adkaysi karti iyo isku tashi la yimid isla mar ahaantaasna iskuulladii ayay fureen xagee ku aragtay meel 60 qof dad ka badan lagu dilay meesha dadkii degmada deganaa ee rayidka ahaa ee muxsiniinta ahaa dembiga iyo dagaalka iyo colaadda aan oogeyna ayagu isdifaacayay 5 qof ay ka dhimatay gudoomiyuhu ii sheegay waa maxamed cabdullaahi muuse gudoomiyaha degmada baxdo waxa uu sheegay inay yihiin dad shuhada waa soo hadalka u dhigay isagu oo markaas ilaahay subxaanahu watacaala uu asagoo abaal marin doono ayagoo naftoodii iyo maalkoodii difaacaya ayay dhinteen oo nin Soomaaliyeed oo diin sheeganaya oo gar leh oo khamiis qaba iska celinaya ayaan darro weeyaan haddaba in ay arrintii soo jiidato waxay in markaa iskuulladii la furo dib loo furo oo markaas dadkii imtixaankii ay u fariistaan 2 wiig ka hor waxaad ogtihiin dalka Maraykanka in lagu dilay 12 arday ah oo ciyaal yar yar ahaa oo iskuul dhiganayay intuu nin usoo galay uu xabad uu xasuuqay ilaa ay haatan iskuulkaas waa xiran yahay news headline ku saaran yahay magaaladaas dhan gabagabay ku jirtaa dadkan degan degmadan baxdo dadkaas waa ka horeeyaan waxay uga horeeyaan maalintii dagaalku uu dhacay ayay dhiiggii inta iska mayreen oo meydadkoodii iska qaadeen ayay iskuulladii sare ay fariistay ay imtixaankii iskuulka loo fariistay meel ay adduunka ka dhacda ma lahan waa isku tashi waa go'aan bulsho oo dowlad abaabushay aan jirinin bal ayagu naftooda isku abaabulay oo go'aansaday inay iska rogaan rarka oo aan la dulaysanin qofka muslimkaana in la dulaysto waa mamnuuc si kastaba ha ahaatee daawadayaal gudoomiyuhu intaas wuxuu ku daray ardaydu imtixaankii bay fadhidaa ayagoon qof ka macnayn gacanna waxay ku haystaan buu yidhi qalin gacanna waxay ku haystaan qorigay isku difaaci lahayeen waa exactly hadalka sida uu dhigay dadka noocaasa ayaa bulshada Soomaaliyeed ku jira
waxaana muuqata haddii kuwaasoo kale la tababaro tayo iyo tababar la siiyo mushaar ku filan la siiyo in laga maarmi karo ciidamo qalaad dalkeena oo al-shabaab aysan jooginin hooyo soomaaliyeed oo suuqa bakaaraha joogtoon ka baqaynin baabur inuu isku qarxiyo calooshu bannaanka ay timaado iyadoo 6 carruura haysata oo laga yaabo inay agoontoota madhaxawb ay ku beeray ay suuqa ku iibinaysay oo markaas goobtaa lagu dilay aysan dhicinin al-shabaab waa laga adkaan karaa haddii bulshada soomaaliyeed isku tashato degmada baxdo waa hooy ummad soomaaliyeed ay degan tahay culamaa udiin soomaaliyeed ay degan yihiin namely ama haddaan magacaabo ahlusunna waljamaaca ay degan yihiin annagoo dhan baan ahlusunna waljamaaca wada ah dad muslimiin ah oo ilaahay ku xiran weeye oo rasuulkooda jecel ma aha kaafiriin ma aha mushrikiin sida ay al-shabaab rabaan inay dadka ka iibiyaan dabadeedna dhiigooda cirdigooda iyo maalkooda iyo sharaftooda ay u bannaystaan meel in looga soo wada jeesto ayatiinkana loo tashto degmada baxdo ayaa hoggaanka ilaa iyo haatan wada world guinness record haddii la bixin lahaa degmadaas in la siiya ayay ku habboonayd iyo dalkeeda daawade waad ku mahadsan tahay muuqaalkan aad daawanaysid dadkeenna iyo dalkeenna waxay amni ka heli la'yihiin oo dad fara badanoo ay noogu soo dhuumanayaan oo naloogu soo durxulayaan wiil al-shabaab la yidhaahdo oo raba inuu isqarxiyo oo raba inuu ku yidhahdo diin baa ku dhaqaya iyo ilaahay baa kitaab soo dejiyey kitaabkaasaan dad ku dhaqaya kitaabka waa la yaqaanaa nebi maxamed dadka ma qarxin jirin ma weerari jirinin maatada iyo guryahana ma weerari jirin goobta ugu horreysay ay weeraraan masaajid bay ahayd suu guddoomiyuhu ii sheegay goobtii ugu horreysay ay yimaadeen masaajid bay ahayd xagee ku aragtay muslim masaajid weeraraya xilliga rasuulka waxaan ognahay marka la dirayo jeish muslimiin ah meelaha wax lagu caabudo dadka waaweyn dhirta haweenka ubadka dadka bermageydada ah dadka diimaha kala haysta ee da'da ee shaybka ah inaan la taabanin ayuu dardaarmi jiray wiilkan wuxuu rabaa hooyada inuu qarxiyo aabbahayo 80 sano jira inuu qarxiyo 80 sano aabba ilaahay caabudayay ayuu leeyahay waa gaalo waa qarxinaya isku dilaya waxaas iyo wax la mid ah ayaa dadkeena iyo dalkeena ku dhex jira isku tashta ka tashada cadaawahu isku tiirsanaada degmada baxdo iyo dadka degan in ummadda soomaaliyeed ay ku dayataa wanaagga iyo horumarka ay soo bandhigeen iyo siday isaga caabiyeen argagixisadaasna ay u noqotaa tusaale degmooyinka kale ee dalkeena soomaaliya ku yaala hadday ahaan lahayd kuwa jilib jooga hadday ahaan lahayd kuwa kamsuumo jooga hadday ahaan lahayd jamaama kuwa jooga qoryooley kuwa jooga iyo meelaha lamidka marka ay xoog ku leeyihiin waxaan kaga tegaynaa soomaaliya diida ceeb naftiina ka dhowracay